jeclaystay in aan idinla wadaago walaalayaal. wiilkan yar aad u jeedaan waa wiil aad iyo aad u been badan. maalin maalmaha ka mid ah asaga oo gurigiisa joogo oo ku ciyaaraya taleefankiisa isticmaalaya internetka ayaa waxaa soo wacay wiil asxaabtiisa ka mid ah. kadib koolka uu soo wacayo ayuu dhibsaday. wuu ka qabtay asagoo dhibsanayo. kadibna wuxuu ku yidhi, aniga waxaan joogaa saaxib masaajidka, salaad ayaan dukanayaa, hadda aan weyse qaadka ka soo kacay oo salaad ayaan dukan rabaa, ee marka aan dukado ayaan ku soo wacayaa buu ku yidhi. subxaan allah, walaal, beenta ilaahay ayaa xaaraantinimeeyey, mana ahan wax xalaal ah, waana shay aad u xun, mana wanaagsan inaad been sheegto. hase ahaatee waxaa haddana asagoo talkiisa ku ciyaarayo, weliba aad ugu faraxsan oo ku qanacsan wakhtiga oo meel xun ku dhuminaya, ayaa waxaa haddana soo koolgareeyey isla saaxiibkiisa. wuxuuna ku yidhi, niyoo soo kuuma sheegin masaajid baan ku jiraa, anigaa ku soo wacaya baan ku idhi, anaa ku soo wacayo, mar dambana ha isoo wicin saaxib. sidaas buu ku yidhi. walaal, beenta waa xaaraam wallah. kadib maxaa dhacay walaal? taleefankii wuu ka caajisay. wuxuu haddana doontay laabtoob ayuu soo qaatay oo wuxuu ka daartay hees, weliba asagoo qanacsan oo faraxsan. beenta ayadoo xaaraan ahayd ayuu haddana wuxuu ku sii darsaday muusigada xaaraanta ahayd. subxaan allah. bal u fiirsa walaal waxi dhici doono. alla rabbiyow, ilaahu qaatimo xuma hanagu dilin. asagoo heestii ciyaaraya kolba dhinac u boodayo ayaa wadnihii halmar looga soo booday. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. walaal, haddaad maanta caafimaad qabto waxaad ogaataa weli inaad jaanis haysato. midda kale, rabbi subxaanahu watacaala wallaahi waa qafuururaxiim. ilaahay towbada agtiisa mar walba ay ka furantahay. walaal, haddaad waddo xun ku socto towbadkeen. jasaaka allaahu khayran. aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin daawashada aad daawateen fiidiyowga. waxaan idinka codsan lahaa keligiina in aad